والله aad bay u dhiban tahay xaaladan lagu jira halkan aanu taaganahay waa halkii guryaha xaaji lacagdoon oo ah halka uu ka bilaamo suuqa la yiraahdo suuqa waaheen dhismihii hore ay dawladda hoos lahayd waxaad arkaysaa imika inuu dabkii dib u bilaamay oo aad arkayso maktabadii imika waa taa gubanaysa waxa ay gaadhay xilli ay awoodeeni ay kolba sii yaraanayso mujtamacii booyadaha cagafyadii ciidanka dabdamiska dhammaan waa lala tacaalayaa xaaladan dhabta ah ee taalla bulshada reer Hargeysa wake up hantidiinii dhulkiinii eeriyadiinii meel waliba way gubatay waa qadar ilaahay keenay laakiin inaynu inagu isku tashanaa wanaagsan dabka imika iga dambeeya marka dambe uu sii qarxayaa oo wuxuu galayaa dhulka waxa jira meel aanay gaadhin wali ciidamadii dabdamiska iyo ciidamadii qaranku booyadleyda waxa biyaha haya marba biyaha ayaa ka dhamaanaya awoodayadii iyo gacmahayagii wixii aanu qaban karanay waanu qabanay laakiin reer Hargeysa maanta waxa ina soo gaadhay burburkii ugu weynaa abad ee magaalada Hargeysa ku dhaca cagaftan waa cagaf ay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa leedahay inan ka wada waa abaadir waa shaqaalaha dawladda hoose nasiib darro wax lagu tilmaamo ah iyada oo dabka halkaas imika ee shuf beelay ee maktabada ka hooseysa oo marka ka dambaysa sii holcaya inaanaan waxba u qaban karin ciidamada qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Musabbixi musharaxa madaxweynaha kale Faysal Ali Waraabe dhammaantiin bulshada la hadla wixii cagaf haysta ha yimaadaan halkan waa in la kala xidhaa dababkan si aanu dababkan u noqon qaar ku faafa dhammaan meel kasta ilaa biriishka dhinaciisa kale imika maraya marka ka dambaysana uu sii holcaya